ku dhawaad 50 sano ayaa ka soo wareegatay markii ugu horeysay ee la sheegay in dayax gacmeed qof sida uu tagay dayaxa. howlgalka hawada sare ee Apollo 11 ayaa ahayd dhacdadii ugu horeysay ee Mareykanka iyo taariikhda adduunkaba ay lagu tago dayaxa. haddaba maxay tahay xaqiiqada dhacdadaasi? muxuu Mareykanku ugu baahday in uu dayaxa tago? tartanka dhinaca hawada sare wuxuu u dhaxeeyay Mareykanka iyo Sofiyeetka kadib markii ay Sofiyeetka hawada sare u dirtay dayax gacmeedkii ugu horeeyay. markii uu John F. Kennedy uu madaxweyne ka noqday dalka Mareykanka sanadii 1961 shacabweynaha Mareykanka waxay aamineen in dalkoodu tartanka looga guuleystay maadaama xilligaasi tartanka tiknoolajiyadda uu salka ku hayay dagaalkii qabooba. sanadkaasi ayuu ahaa midowgii Sofiyeed markii ay dayax gacmeed hawada sare ay u direen. Mareykanka ayaa waxa uu dhaxda u xirtay sidii uu hawada sare dayax gacmeed uu ugu diri lahaa, wuxuuna Mareykanku uu ku guuleystay sanadii 1962 madaxweyne Kennedy oo ku dhawaaqay xilligaasi in uu dalkiisa dayax gacmeed hawada sare u dirayo waxa uu yiri waxaan dooranay in aan annagana aynu aadno dayaxa. tartankii hawada sare ayaa halkiisii ka sii socday sanadii 1965 midowgii Sofiyeed ayaa haddana waxay hawada u direen dayax gacmeed keligii ah oo aanu qofna la socon, waxaana dayax gacmeedkaasi uu soo taabtay dayaxa. haddaba sidii u dhacay howlgalkii Mareykanka ee dhankiisu hawada sare uu ku beegsaday? wakaaladda hawada sare ee Mareykanka NASA waxa ay dejisay qorshe ballaaran oo ay ku horumarinayso barnaamijkeeda dayax gacmeedka Apollo. barnaamijkan oo ay ku dhawaad ay ka howlgaleen 400,000 oo qof waxa uu ku kacayay dhaqaale gaaraya $25 bilyan. 8 cirbixiyeen ah ayaa loo doortay howlgalka Apollo 11 waxaana ka mid ahaa Buzz Aldrin, Neil Armstrong iyo sidoo kale Michael Collins iyo shakhsiyaad kaleeto. dayax gacmeedkan oo ah mid aad u weyn gantaalka sidana uu yahay Saturn V wuxuu ka shaqeeyay barnaamijka Apollo iyo sidoo kale adeegyadii uu lahaa barnaamijkaasi. qorshaha NASA wuxuu ahaa qalabka asaasiga ah ee hawada sare looga baahan yahay dayax gacmeedka intuusan caga dhigan in meeraha orbit la geeyo kadibna dayaxa looga sii socdo. raggii ka shaqeynayay dayax gacmeedkan ee 8 qof ee loogu talagal ahaa howlgalkan waxa ay soo kala qaybiyeen dhowr nooc. kooxdii ugu horeysay ee tijaabada samaysay meeraha orbit wuxuu ahaa Apollo 11 sanadkii 1967 balse musiibadii ugu horeysay waxa ay dhacday intii tijaabadaasi lagu guda jiray waxaana qarxay dayax gacmeedkii caga dhigan lahaa orbit waxaana halkaasi ku dhintay 3 cirbiyeen oo dayax gacmeedka saarnaa. wixii intaasi ka dambeeyay waxa bilooyin hakad la geliyay howlgalkii dayax gacmeedka ee hawada sare Mareykanku uu ku beegsanayay. intii lagu guda jiray barnaamijka Apollo 11 waxaa sidoo kale dhacay cilad dhinaca isgaarsiinta ah oo la soo diristay dayax gacmeedka xarunta laga hagayay iyo sidoo kale kombiyuutarada yiilay xarunta dayax gacmeedka maamulkiisa uu ka socday. dhibaatadaasi markii ay dhacday kadib isla sanadkaasi 20 Julaay 110 saacadood kadib markii uu dayax gacmeedka dhulka ka maqnaa dayax gacmeedkii dayaxa ayuu gaaray waxaana uu noqday shakhsiga ugu horeeyay ee cagihiisa soo saara dayaxa. Neil Armstrong oo dayaxa ku dul socday muddo 20 daqiiqo ah waxaana intaasi kadib ku xigay Buzz Aldrin. erayada uu Armstrong isaga oo dayaxa korkiisa ku lugaynaya uu ku hadlayay ayaa waxa laga sii daayay telefishinada caalamka oo idil. 2 qof oo kale iyaguna la socday waxa in ka badan 2 saacadood ay ku xayirnaayeen meel ka baxsan dayax gacmeedka iyaga oo dayaxa dushiisa sawirro ka qaadayay. cirbixiyeenadaasi markii ay dhulka ku soo noqdeen 24 Julaay ayay ku dul dhaceen badda Basifikada. dad ka badan 650 milyan oo dunida dacaladeeda ku kala sugan ayaa si toos ah telefishinada caalamka ugu waaweyn kaga daawanayay markii ugu horeysay ee dayaxa dushiisa lagu soconayay. sanadii 1972 guud ahaan 6 dayax gacmeed ayaa hawada sare loo diray. inkastoo ay jiritaanka tagitaanka hawada sare ee ay leedahay heerar kala duwan, wakaaladda NASA waxay 2009 ay meeraha orbit u dirtay dayax gacmeed kuwii hore ka casrisan wuxuuna soo qaaday sawirro tayadoodu ay aad u sareyso. cirbixiyeenada in ay dayaxa caga dhigteen waxay caddayn ahaan dhulka ugu soo noqdeen dhagaxaan ay sheegeen in ay dayaxa dushiisa ay ka soo qaadeen. Mareykanka ayaa noqday wadankii kaliya ee u suura gashay in uu dayaxa u diro dad, inkastoo ay Ruushka, Jabbaan, Shiinaha iyo hay'adaha Yurub iyo Israa'iil iyo Indiyaba ay tijaabooyin dayaxa ay ku tageen balse ay tijaabooyinkaasi ay socon waayeen. si kastaba ha ahaatee tallaabooyinka ay wadamadaasi u qaadeen dhinaca hawada sare ayaa lagu tilmaamay in ay xagga teknoolajiyadda horumar weyn ay kaga gaareen. dayaxa la tagayna waxaa lagu ogaaday in hydrogen iyo oxygen uu leeyahay uuna ku wanaagsan yahay in dayaxa
laga qaado macdanta dahabka, platinumka iyo macaadinta yaryar ee dhulka aananba laga helin. waxaana sidaasi markii ugu horreysay ay ku suuro gashay in dayaxa dad loo diro welibana sawirro ay ka soo qaadaan.